waxaynu ku soo noqonnay caawa si rasmi ah bani aadamnimadii markaa hambalyo inaan bani aadam nahay. weliba waxaan nahay bani aadamka kuwa ugu qiimaha badan. waxaan nahay Soomaali, waxaan nahay muslimiin. 30 sano ka hor ayaynu ka baxnay xayndaabka bani aadamnimada. taasoo keentay in bani aadamkii ay iskaga keen xidhaan sida juuj wamaajuuj derbi adag oo aan laga gudbi karin. waxaa la yidhi cunaqabatay nubka harta inaga saara. waxaa la yidhi baasaboorkooda ha aqbalina. waxaa la yidhi inaga ilaaliya. maxaa jira? waxay ka baxeen xayndaabkii bani aadamnimada. inaan bani aadamnimada ku soo noqonno waxay u baahatay inaan soo buuxinno shuruudo badan. waxay u baahatay inaan soo qabanno shaqo badan oo aan soo qaadano certificate ah inaan nahay bani aadam. shaqooyinkaas faraha badan ee la soo qabtay si aynu certificate-kaas u soo qaadanno waa kuwii caawa halkan laga akhrinayay, waa kuwa hadda aan sheegaynay, waa kuwa ay naga soo qaadatay in ka badan 10 sannadood inaan cashiradaas iyo caqabadahaas aan ka soo gudubno. ugu dambayntii bilahan ugu dambeeya ayaad moodaa in la aqbalay shahaadadeennii oo la yidhi bani aadam baa tihi. 2011 ayaan aniga oo shir jaamacado leeyihiin u socdo tegay waddan kale ah oon Soomaaliya ahayn. markaan waddankii tegay amin makhriba aan ka degnay garoonkii dayuuradda markaan saas uga soo degnay Soomaali baa saarnayde waxaa loo yimid nin booliisa oo yaa af Ingiriis yaqaano oo dadka iiga tarjamo anaa gacanta u taagay oo wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad dadkan u sheegto kulligiin ku noqdo diyaaradda waa la idin celinayaa. oo maxaa loo celinayaa? sharci darray ku socdaan, baasaboorkoodana ma aqbaleen. waxaan u imid Soomaalidii oo kale oo baasaboorada ajaanibta watay qudhooda oo saf la geliyey. waxaan xusuustaa nin saaxiibkay oo aan waqti dhow saaxiibnay oo runtii aad u jeclahay oo reer UK ah oo ganacsado weyn ah, ganacsatada Soomaaliya ugu weyn ah, oo qubdiisa meel cidla la joojiyey Soomaalinimo darteed oo baasaboorkiisa xataa laga diiday. marka dadka waxaa la leeyahay qof meeshan degan oo Soomaaliya oo sharci ku haysta oo damiinka ah waa in la helo suu ku geliyo magaalada ugu sidaa. waddankaas wuxuu ahaa bariga Afrika waddan ka mid ah. waxaana maanta guul ah inuu waddankii qaatay rumeeyey inaan bani aadam nahay oo aan hadda kadib ayna u qaadanayno baasaboor xataa. marka inaad bani aadamnimada ka baxdo ma aha inaad Soomaalinimada ka baxday, laakiin qawaaniintii ay ku wada noolaayeen bani aadamka casrigan ku nool markaad ka dhex baxdo bani aadamnimada ka baxaysaa. marka waxaynu ku soo noqonnay caawa si rasmi ah bani aadamnimadii markaa hambalyo inaan bani aadam nahay. weliba waxaan nahay bani aadamka kuwa ugu qiimaha badan. waxaan nahay Soomaali, waxaan nahay muslimiin. mar haddaan ku soo noqonnay bani aadamnimada waxaan caalamka uga mahadcelinaynaa in dabaradii adkaa iyo derbiyadii adadkaa iskaga kaaya qufuleen, iskaga kaaya dayreen
inay naga fureen waxa inagu haray ee dabaraa waa waxaynu inagu gacmaheena iskaga furi karno marka kuwii caalamku inagu hayay inagu xiray dabaradii uu inaga furay kuwa inagu aan isku hayno Soomaaliya ma iska furnaa baarlamaanka inaga furo waxaan rabaa meeshaan inaan ka xuso wax kasta oo guul ah oo la gaaro oo dal gaaro oo ummadi gaarto waxaa aas-aas u ah saldhig u ah hal shay wa'tasimuu bixablillahi jamiican walaa tafarraquu midnimo deganaansho xasilooni guulaha aan maanta gaadhnay waxaa ugu weyn sababaha aan ku gaadhnay xasilooni siyaasadeed muddadii aan soo joognay inuu waddankan ka jiro taasaa keentay inaan tallaabsanno in xukuumaddu shuruuc keento baarlamaanku si sharaf loo ansixiyo madaxweynuhu soo saxiixo isqabsi uusan jirin dagaal uusan jirin iska luulasho uusan jirin si smoothly ah saaxiibtinimo ah in lagu wada shaqeeyo taas ayaa sabab u ah guul kasta oo gaadhno oo ku tallaabsanay taasaa sabab u ah in muddo hal sano iyo 3 bilood gudahooda ay xukuumaddani xaqiijisay wax horey loo xaqiijin waayo oo mustaxiilaadka ka mid ah waxaan hubaa haddii aan muddo saas ku soconno Soomaaliya oon xasiloonida siyaasadeed aan ku soconno dalkeennu hadda bini aadam baynu noqonay wixii hadda ka dambeeya waxaynu u gudbaynaa horumar iyo dhaqaale iyo sharaf iyo karaamo iyo cizzi ayaynu u gudbaynaa waxaan mar kale ku soo celinayaa oo ku celinayaa dadka Soomaaliyeed aan leeyahay midnimadu waa waajib waxaa waajibna waa inaynu dabarka iska furnayno dabarka qabyaaladda inaan iska furno ka musuqmaasuqa inaan iska furno ka kala qaybsanaanta inaan iska furno ka khawaarijta inaan iska furno dabarada inagu aan isku hayno aan iska furno kii caalamku wixii aynoo hayeen oo dhan way naga fureen marka inaga la inaga rabaa kaan isku hayno inaan iska furno